مشروعا oo socon doona muddo 3 sanadood ah isla markaana ay maalgelinayaan midowga Yurub ayaa ujeedadiisu tahay sidii wasaaradda qaranka u qaabilsan hawshaasi looga kaabi lahaa horumarinta tayada wax soo saar ee kalluumaysatada xirfadooda aqooneed iyo hanaanka maamul ee xeebaha dalka wasiirka wasaaradda kalluumaysiga Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kulankaasi hadal ka jeediyay hadalkiisina waxa kamid ahaa haddii mashruuc la sheego la yiraahdo waxba ina la qabanaya ha ka filinina in wax badan la qabto مثلا مشروع hadduu yahay $1 milyan waxa ku xisaabtantaan in wixii ka soo gaaray inagay wax 100 ka yar ee noqoto ama tababar halayna ku siiyo ama muxuu ahaay wax kale halayna ku qabtee marka inta badan mashaariicda inoo timaada hay'adda soo samaysay ayay dib isaga noqotaa ama intaas oo khabiir baa laga daba keenaa ama waxay iyagiinba mashruucan waxa ku jiri doona ilaa 6 khabiir sidaan ka akhriyo 6da khabiir waxa qaadanaya mashruuc inta u badan lacagtiisa marka adoo hawranina wasaaradda mashruuc baa u yimiyo hay'ad baa u timiyo ee kalluumaystada wax rabay wax loo qabto wax badan ka soo bixi ma waa sideen arki jirnay laakiin waa soo dhaweynayna waxa rabnaa in bal aynu dadka tusno in waddankeena laga shaqeyn karo wasiirka wasaaradda beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland Professor Goodole oo isna kulankaasi ka hadlay ayaa muujiyay sida khayraadka baduhu u yihiin ilaha dhaqaale ee soo raaca dhaqashada xoolaha nool loona baahan yahay in ishaasi dhaqaale sida ay tahay looga faa'iideysto kalluumaysigu wuxuu noqonayaa waxa ugu weynayno bedela hilibka adduunka markaad eegto waxa ugu badan lagu cunayo waa kalluun iyo digaag labadaasina way nagu yar yihiin inaan hore u marinana waa arrin nagu qasab waxa kale oo halkaasi ka hadlay Ismaaciil Siyaad oo ku hadlayay magaca shirkadaha kalluumaysiga ayaa sheegay in ay wada shaqayn fiican la leeyihiin wasaaradda kalluumaysiga isla markaana ay wax badan ka caawiso wasaaraddu soo dhaweynayaan mashruucyada kor loogu qaadayo arrimaha kalluumaysatada gunaanadkii kulankaasi waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ka socday hay'adaha mashruuca fulinayay iyo kuwii bixinayayba waxaana sheegeen in mashruucani muhiim u yahay isla markaana kor u qaadayaan qaababka farsamo iyo horumarinta kalluumaysatada shirkan oo lagaga hadlayay kalluumaysiga iyo horumarinta xeebaha Soomaaliland oo lagu qabtay hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa oo ay ka soo qayb galeen wasiiro ururada bulshada ururka nagaad iyo NGO-yo kale midowga Yurub iyo AU-da kaasi oo lagu falanqeynayay sida loo horumarin lahaa kalluumaysatada iyo kalluunkaba Nimco Maxamuud Cabdi telefishinka qaranka Soomaaliland Ambassador